nugaal hiilis waa magaalo cusub oo si casri ah u qalabaysan ayna ku baxayso $100 milyan taasoo laga hirgeliyay duleedka Garowe. maanta ayaa si rasmi ah loo daahfuray 3,000 oo guri, 11 aag, goobo waxbarasho, goobo ganacsi, goobo midadaalo, goobo caafimaad iyo kuwa cadaaladeed ayay leedahay magaaladani, taasoo ka dhigaysa mid banaanka aan waxba uga baahan doonin. shirkadda Cimaad iyo Salaam Bank oo iskaashanaya ayaa hirgeliyay mashruucan oo ay ku baxday in ka badan $500 milyan Mareykanka ah, sida uu sheegay maareeyaha guud ee Cimaad. madaxweyne mudanayaalihi marwooyin magaaladan waxaa loo nashqadeeyay waqti badan loo geliyay in la xalliyo baahiyaha jira oo sababayay in dadkeena qayb ka mid ay u hayaamaan wadamada deriska iyagoo raadinaya waxbarasho iyo caafimaad, sidoo kale inay xalliso baahida qurba joogta oo loo diyaariyo magaalo ay ka helayaan dhammaan adeegyadii ay ka heli jireen magaalooyinka ay ku nool yihiin ee horumaray. magaaladani waxay ka kooban tahay haddaan soo gaabiyo 11 xaafadood ama 11 zone kasta wuxuu ka kooban yahay ku dhawaad 250 guri. totalka marka la isku daro projectigu marka uu dhamaado waxay noqon doontaa 2,750 guri. intaas waxaa dheer meelihii public ahaa, commercial areahi, shopping centeradii, masaajidadii, iskuuladii, hay'adihii dawladda iyo dhammaan waxyaalihii loo baahnaa. maareeyaha guud ee Salaam Bank Cabdirasaaq Yuusuf Cali iyo gudoomiyaha guud ee maamulka shirkadda Golis Luqmaan Sheekh Maxamuud waxay sheegeen in macaamiisha xaafadani ay si fudud hanti ku yeelan karaan iyagoo si hafta u bixin kara lacagaha lagu iibinayo guryaha. hadduusan qofkii one time uusan haysan lacagu hal mar uu ku bixiyo ama shirkadda wuxuu imaanayaa bangiga wuxuu u samaynayaa si installment inuu muddo dheer oo sanado uu ugu qaybiyo isagoo faa'iido yar oo aan la dareemeyn insha Allah ka qaadi doona rate aad u yar ku charge garayn doona hadduu alla yiraahdo. waxa kale oo opportunity aad u weyna saa ka wareysaan qofku markuu bangi tago oo rabo inuu maalgeli ama finance garayo waxa looga baahan yahay wax la yiraahdo collateral ama damaanad. bangigu wax damaanada ha yaraatee uu ku xiraayo customerka ma jiro. damaanad waxa uu gurigiisa uu shirkadda uu ka iibsanayo ama bangigu u finance garaynayo. waxaan rajaynaynaa dalka inaan u noqono example ama tusaale u noqono oo ganacsatada kale ay ku dhiiradaan saan ugu dhiiranay. waxaan u macalinayaa madaxweynaha iyo maamulka Puntland oo run ahaantii ka shaqeeyay nabadda iyo nidaamka dalka oo dhiirigelinaya inay ganacsatada maal gashadaan. in dhawaale wadanku horumar buu ku sii socday. horumarka marka waxaan rabnaa inaan la shanqaadno oo hore loo socdo. intaasi kadib waxaa hadalka isaga dambeeyay mas'uuliyiin kala duwan, wasiirka haweenka Maryan Axmed Cali, wasiirka howlaha guud ee Puntland Faarax Cawad, maamulka gobolka Nugaal, bulshada rayidka iyo mas'uuliyiin kale oo hadlay ayaa bogaadiyay shirkadaha Cimaad iyo Salaam ee mashruucan hirgeliyay. waxaan u sheegayaa marka gabdhaheena meel walba ku nool oo wadankoodii aan ahayn, walaalayaal waad u jeedaan maanta in aan helnay caruurtii meelaad ku soo celin kartaan. horeyna waa u jirtay oo wadanka waa fiicnaayo barwaaqaa jirta. annaga waa 35 qurbaha ku nooleen, haddana waa joognaayo waxaan joognay wili caado dhowr iyo 20 sano ku dhawaadna waa joognaa, waa soo noqonay. laakiin ma ahan aniga iyo jiilkayga iyo wixii xoogaa iga yaryar ma ahane. waxaan rabnaa in aan noloshii annaga waagaan yaryareen aan ku jirnay oo kale inay caruurtiina banaanka joogto aan isla ognahay inaad soo celisaan. waan ku faraxsanahay, farxad bay noo tahay. waxaan oo kaliya dhihi lahayn dadka Soomaaliyeed iyo dhammaan dadka reer Puntland inay ka qayb qaataan dhismaha quruxda badan oo ay gataan oo iibsadaan. shirkadana waxaan leenahay wixii aad noo sheegteen iyo waxaan tusteen ka dhaweeya. waxa intaa dheer waa mashruuc cusub oo inagu cusub, wuxuu u baahan yahay ilaalintiisa iyo tayeyntiisa gaarka
dadka qurbaha joogan ciyaaladooda qurbaha la aaday waxa uu leenahay ku soo laabta dalkiina iyo dadkiina iyo guryaha aad leedihiin ku soo laabta runtii aad iyo aad baan u bogaadinayaa anoo magaca bulshada rayidka ku hadlaya mashruucan aadka u qiimaha badan shirkadda dhisaysa cimaad iyo shirkadaha kale ee bangi salaam iyo goolis iyo stakeholderska mashruuc oo dhan waxaan idin leenahay hambalyo runtii fursad fiican ayuu mashruucan u yahay dalkeenna waxaad nala socotaan dalkeenu runtii waa dal dihin oo cusub caalamku fursadaha waxaad moodaa in loo soo jeedo marinka aan ku naalno muhiimka ah waana bogaadinaynaa runtii maanta Puntland waa meesha kaliya maanta lagu faani karo amni ahaan iyo horusocod baa runtii kelmadda ugu muhiimsan madaxweynaha yeelan doona insha Allah annagu waxaan leenahay soo dhaweyn iyo marxabayn inaan soo dhaweyno dadkiina iyo dalkiina idin ku soo dhaweyno caasimadda ku soo dhawaataan madaxweynaha Puntland Siciid Cabdilaahi Dani wuxuu bogaadiyay shirkadaha hirgeliyay mashruucan wuxuuna ballan qaaday dawladdu inay taageerayso maalgashadayaasha wixii lala qaban karana lala qaban doono mashruucan sida loo soo bandhigay anigu waxaan aad uga dardaarmayaa kaliya marka muuqaalka la daawanayo ama la soo bandhigay waxa ku taala dhir aad u fara badan meesha oo dhan waa wada dhirtaa laga dhabeeyo muuqaalka magaalada waxa bedeli kara waa environmentiga hadda waa muuqataayo dee geedadkii timirka iyo hareeraha laamiga waan arkayaa laakiin waxaan rajaynayaa in dhirta aad loo xoojiyo magaalooyinkeenna waad ogtihiin waa semi desert ama waa lama degaan xigeen laakiin dalal lama degaan ahaabaa hadda maanta dhir miiran ah marka keennu wax weyn uma baahna wuxuu u baahan yahay kaliya isxilqaan yar marka arrinta dhiraynta runtii waxay iga tahay dardaaran waxa kaleeto wax laga sheega male oo hadda ma dhahayno waxa aad soo bandhigteen ka run sheega maxaa yeelay anu waaba soo arko guriga sida halkaa lagu sheegay buu u ekaa horta oo hadda ka run sheega odhan maayo waaba muuqdaa waxaan u baahannahay keliya in dawlad ahaan waxaan ballan qaadayna horena ugu sheegnay haddana u garab taaganahay wax kasta oo dawladdu uga baahan tahay inaan la garab taaganahay kaalinta dawladda insha Allah cid kasta oo dalkan maal gelinaysa kaalinta dawladdu ay leedahay way qaadan doontaa haddii ilaahaydmo oo ugu muhiimsan tahay amniga oo ugu muhiimsan tahay in loo tashiilaadka ay uga baahan yihiin arrimaha dawliga ah in loo sameeyo mashruucan lagu maalgelinayo xaafadan cusub ee Nugaal Hills wuxuu shaqo abuur u sameeynayaa in ka badan 2,000 oo qof isagoo muddo kooban ku dhamaan doona ka qaybgalayaashuna waxay sheegeen in tallaabadani muujinayso in dalka lagu aamini karo maalgashi aad u tiro badan